هذا يعني لكم هذين يا روتي شرفتي كرامة يدريسينا وعن ديار وهاي سؤال كست أو أغلبان أنت أنت وجاي هنا في الجواب وما سنتي. محمد نوش كتاب حوجا وتعبتي وريلي أحمد تذكر أنت وده جبت مرجان الجليس إن ودك أيه هو رجوع نقابته وجل ويسيد ودك ما كتسب اسمعي صراحة waxaan sida anaga joogno meeting ka akhrinay inaan tahay wasiir dawladda hadda dibiskeedu ahaa inay dib u heshiisiin sameyso aad ka qayb qaadatay inaad dagaal oogto oo aad isbaayo iyo jubbooyinka aad dagaal ka oogtahay meeshii aad dib u heshiisiin aad u sameyn lahayd su'aal dad badan ay runtii maskaxdooda ku jirtay ayaa weydiisay Kismaayo waa dal Soomaaliyeed waxay ka mid tahay gobol ka mid ah gobolada Soomaaliyeed anigana markii aan tagay Kismaayo waxaan ahaa mas'uul sare oo dawladda Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan gaar ahaan wasiirka gaashaandhig ujeedooyinkii aan u tagay gobolada kale oo ay ka mid yihiin Gedo Bay Bakool Shabeellaha Hoose Shabeellaha Dhexe Hiiraan iyo Galgaduud kama duwaneen ujeedo ka duwan uma aanantin waxaan u tagay kaliya in ciidanka Soomaaliyeed aan dib u isku sameeyo waxaan u tagay ciidamada Cambodia oo runtii mudnaa in lagu amaano dagaalkii xoog badnaa ay u soo galeen inay al-shabaab ka saaraan deegaanadaasi in la qarameeyo oo laga dhigo ciidan dawladeed si ay u helaan xuquuqda ay u baahan yihiin oo ay ciidamada kale oo Muqdisho jooga ama gobolada kale jooga ay helaan inay helaan baan u tagay runtii dagaalna xaqiiqdii inaan dagaalka oogay ama aan meeshaas dagaal aan ka aasaasay iyo inaan shaqo qaran u tagay ummadda Soomaaliyeed ayaa qireysay meel kastoo aad tagtaan xaqiiqdii waxaa kaloo jirta waa vice versa waxaan aad ugu dadaalay inaysan dagaal ka dhicin meeshaas intaas aan joogay iyo haddaan aniga ka tagay waxaan tusaale Cabdildiif aan ugu sheegi karaa runtii waxaa jirtay ciidamada isku dhacay ciidamadan runtii way isku dhacaan sidooda xamar kuwa jooga kuwa gobolada kala jooga sida Kismaayo hadda ciidamada markaas aniga aan joogay ay isku dhacay ciidan baa isku dhacay markii aan joogay ciidankaas isku dhacay ciidan kamid ah waxay ahayd ciidan raas Kabooni iyo ciidan kale ciidankii kale markay isku dhaceen waxay heleen nin oo madaxa amniga raas Kabooniinta ah ay heleen meel gooni asoo ciidan yar wata way qabteen awil baa la dhahay Allah u naxariisto ninkaasi waa dhintay awil markay ay qabteen oo aad maqlay aniga madaxii amniga raas Kabooni inay ay gacanta ku dhigeen nimankaasi waxaan ku dadaalay oo aan negotiation xoog la u galay ninka Soomaaliyeed inaan dhibaato loo geysan oo la soo daayo waxaan la xiriiray ciidamadii qabtay muddaan wada hadlaynay oo aad u wada hadalnay telefoon markii dambe waxaan ku qanciyay inay soo daayaan xageen ku daynaa bay yiraahdeen waxaan ku iri Amisom u dhiib Amisom tu joogto meesha ha lagu wareejiyo si ay ugu wareejiyaan Cambooniin waa lagu wareejiyay waa ku guuleystay laakiin nasadar maxaa dhacday marka la soo daayay oo Amisom lagu wareejiyay inuu dagaalkii dib u galay oo uu ku dhintay runtii waa nasadar aad u weyn حقيقي وحاليجا فيديو دعاية آد فربنا وأنت أسقطان دجال كسماعي إنه دجال خدعه قف كستو وحيقو إهات هنتي جب وحيدولد وحيقو إهات جبوي أنا جو وزير عشان نيجو ماشي جو وحيقو إهات أهين آد وحنفوتي ذاتك الديران كسماعي دجن وحيقو إهات أهين آد ودلعتي سنو آد وحنون بدل وحن آد وشقي مركين يسند دجال خدعه لكن وحي قرن مرنا مجودين كذا حق الله كقرنت إنه دجال كاسد دعوة فهمتي إن بدن بانك دلالي إنه يسند دجال كاسد دعوة وما سند haddii marar meeshii wax jira ay tahay saad jeertay qaran aan ciidan lahayn lagama haybaysto ciidanna uu sidaan yahay qaabkee la rabaa ciidankii Soomaaliya in loo dhiso adigoo wasiirkii gaashaan kow
mid labaad kollay nin baan nahay annaga soomaaliyaha qabna mali laakiin waa lagu wadaa sheekaystaa ilaa iyo hadda waxaan ognahay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh habeenkii la dooranayay balkonka fadhiyay sida loo doortay waa baarlamaanka doortay madaxweyne la doortay waa head of state waxaan qabaa sida meel walba ordayso aan hubana inuu asaga raalli ka ahayn tala aan asaga soo marin oo aan loo ictibaarinin oo badan dalku inay ka socoto sida inaad geli wayso oo kaleeto federal waa fiican yahay laakiin federaalku aan ku xirnayn dowladda dhexe muxuu Soomaaliya macna u leeyahay oday nuur waa mahadsan tahay san oo ah sidee loo heli karaa ciidan Soomaaliyeed dhismihiisa ciidan Soomaaliyeed dhismihiisa waa socdaa runtii xawligii aan rabnay inaan ku dhisno ciidanka awoodeeda ma lihin dhaqaale xoog leh u baahan tahay taageero caalami u baahan tahay laakiin muddadii hadda oo ugu dambeysay 2 sano 3 sano ugu dambeysay ciidan Soomaaliyeed ayaa mar walba tababar la gelinayo lagana soo saaray ciidamadana awal waxa lagu soo tababari jiray wadamo diris ah sida Uganda oo kale wadamo aan maaragtay oo Afrikaan ah oo ay maalgelin jireen European Union laakiin waxaan pressure far badan oo aan saarnay kadib aan ku guuleysanay in wadanka gudihiisa lagu soo tababaro sababtoo ah ciidanka marka dibadda lagu soo tababaro oo waliba meelo kala duwan lagu soo tababaro waxay la imaanayaan doctorin kala duwan oo afkaar kala duwan ay la imaanayaan oo haddana waxaan qasab nagu ahaan jirtay inaan 45 maalmood kale aan gelino tababar oo wadankooda gudihiisa aan ku siino si ma aragtay loo oo ay u fahmaan waxa ay face gareyn doonaan marka runtii waa socotaa hadda waxa ugu dambeysay last year aan ka saarnay tababar 1800 ciidan oo lagu tababaray dugsiga Jazeera oo ay soo xuleen saraakiil Soomaaliyeed ayna tababareen saraakiil Soomaaliyeed ciidankaasina maanta 1800 waxay ka mid yihiin ciidamada howlgallada ka wada gobolada iyo degmooyinka waxaana jira National Stabilization Plan oo ay policy Soomaaliya ay dejisay oo dib loogu dhisay ciidanka dawladda tan kalena runtii waxaan ogahay aniga kulleeyada wadanka waxa madaxweyne ka ah Xasan Sheekh Maxamuud wax kasta oo la sameeyay talidiis ayaa lagu sameeyay laakiin waa jirtaa inaan wadanka oo dhan dawladda gacanta ku haynin oo dadaalkiisa hadda loo in dawladda ay gacanta ku dhigto wadanka oo dhan talidiisa ay laato oo ay ogaato ma aragtay qof kasta oo soo gala wadankaas inuu noqoto dawlad oo ka war hayso clearance siiso oo waxa wadanka socda oo dhan ay ogaato waxa weeye waxaan aad ugu farxay Ethiopia iyo iskama soo gelin mana iska joogto heshiis ayay dawladda la gashay oo aan lama dhaafaan ah wax lagu farxo كي محل لقى كي waxay ku joogtaa heshiis ay la gashay dawladda ku meel gaarka ahayd ee madaxweynaha uu ka Sheekh Shariif marka hore waa ogtahay way soo galeen laakiin markii dambe oo AMISOM ay ku intaanay ku biirin ka hor waxaa jiray heshiis ay dawladda Soomaaliya iyo Kenya ay kala siyaadeen heshiiskaas ay ku joogaan ayaga runtii waxa ay sameeyaan ama mandate-ka ay ku joogaan haday raaci waayaan waa wax kale oo ay u taal runtii laakiin waxay ku joogaan framework heshiis Soomaaliya iyo Kenya ay kala siyaadeen ساعات وزير وسلام
إذا كان وسلامتي ساعات وزير هل سؤال وزير هذا اللي بس الصومالي يوم برنامج المدحوينه يرئيس وزراء ودن الصومالي أقول أمالها مية ديجانا الصومالي شد اللوكال الدقيقة مسكلة وحي كتاهي وح أو معنا عبسي ما يكتاهي وحان أسوق هذانا جبوين كوكا جبوين كوكا هتي تقول لغفاني نيجا تقول لغفاني كراني هو سببت أي كل عذي تبقوا هشيسين تلبق قبيل وصومالي وإنتان قبيلة لبق قبيل كلي إن الدولة قادو إثيوبيا جيسو لبق قبيلنا قبيلة ده لكلية قاد هشيسين أيها كذا عذي لده لبضو إمتى نوصل مصبره لبضو كعنت السجل يوري الوزارة إثيوبيا ماذا هوينا هنجوب تاس مت أو حد أو تبقوا هشيسين معهن ودجال وحفي عن معه هدي دولة وزير هداد إهدان هداد ودن كأقول أولهن دبعته واي هداد ودن كي أد وزير أد إهدان هداد ديجان كي دت كي إسكالها جبوين كذا جبوين كي دت كي دجنا إن له يشيسيو أيا لسه أوعي لبا قبل أنت ديار صاروا إثيوبيا لجي واسو يشين لدو أنا كتاس مكتوب قبضة معه أرنتاس والو دق وحجر أو وحسو عناينا أديك إن البورك إن تقتل وجودنا أرنتاس أديك الدولة ده سببه إذن كأسياشين البور أديك على هذا الوجود نكودي كرمال لكن دولة ده حكودي تي كينيا نكلت كودي ده ماله دولة كينيا ده تكو حدا ما نسود دوبيسي أنا كبوها مالجريني أيه تدرسوا دوبيسي هذه مها investment هذا أيه دوا كسور دوبيسي لكن هذا investment أجلسي حولا أجلسي حولا هذا أو دور كجوجا كوكاهي دكيا كوكاهي واحد سواهي شو كتن كدوا بسمي أنا قلت إيه فائدة أن أسمعين فائدة نو سمعين سعيدا فائدة نجاش لكن هذا وحن إذن له وحن ربائنا نوجد جواب تدتي أقون أولهن يو هتي كسوية هتو بدأ أساق اختيار كي سكوية يو هدي أقون أوليه دينان كسدت كودت دينان هتي لبق قفود أي شيء تس أي مدنان تاي أو برنامج كنساف كفير سناي وزيريال كساف كفير سناي كي هاد رئيس الوزراء اللي نساف كفير سناي ساس هاد وح أنا هاد الدولة سوين مجرتين ماشان وحن ربنا وح أو هاد الدولة دمدق وسوء ليس نوشة جعفر هذا ومحسين هاي وقت الدولة الصومالية يشعب الصومالية المسؤولين توضروا هنتي والأوجيهين قفل بديجان كيس جدول بديجان كأي دقيقين وكل نوليهين وحل إنكار كلام هنتي ووح تاريخ الكفر وح قف كسر صومالي موادن أخي دولة الكور هاي سؤال لكن يبغوا يشيسين تقبت أو حكي عدون تقولي هذا الصومالي هنتي ناس أيها قف والبقى مقابل كستو أو ديجان كاس كسو جيدا فرصة أسينيسا إنه عايشي المستقبل كيسة وكنت كتشر دولدنا وحي كنت ذاليسا إنه فاسيليتيسا نوسميسا أو أي نغطو bottom up معنى هوش إنت لغسو بلابو إن كورجي تولوينك دموينك قبل كساس لوغا عبد آدم كيسي مدن وسير واقف سلام السود وكسره مقالة كولومبوس هاي وحن فلا إنت نجوي ومركل هذا اعتمادي إن النوت ما دينه فرحسن هاي سؤال شيء وحوي أيضا ضد الصومالي وكان أي حقوق بيجين فرجلين شيء إنه يجيب الأوجي هاي إنه نوهب ستة واحد اللي يرى قبيل حدنا واحد هلا بدي جرب وسير كي عشان لك الصومالي سيابك الدوام بهذا القوي دي إذا ما الصومالي يتيار أي لان كران أنت أي هذا الرجال مركز سؤال شيء واحد كوب سوكوبيا هم سهر رجال لك بكرة إذا لا سكوها لانكر أو الصوماليات ولا إذا كي حوق درس إذا ما ذكر لك سيدا الصوماليات حنان كودي يتيار دي وحنان كروتنا كالصوماليا راس كامبون إلى راس عصي عبدي وما سنتاي أيضا الصومالية في وقت جالس على وجه سكران من ذكره سوقته وحيها باهظة أي عادو وحي لو اللي سيلها أنا قعدت الجمعة لكن وحنكون شيء جيد ذا الفرق بدنا إنه دولة وده
oo runtii albaabo badanna aan u garaacnay oo beesha caalamka ka mid ah inay nagu kaalmeeyaan oo nagu taageeraan in la helo ciidan Soomaaliyeed oo tayo leh oo aanan kara amniga dalka runtii maadaama dhibaato badan ay ka taagan tahay habka federaalka loo sameeyo Soomaalida ay isku wada qabsanayaan waxa la isku qabsanayna way arkaay arrin qabiil oo waxba federaal shaqo ku lahayn suuragal ma tahay in loo kaabiyo intii dadka xor ay noqon karaan si rabaan qabi karaan oo wadanka dhan dawladda gacanta ku dhigto marka dadka xorriyadooda ay timaado banaanka oo iyagu meesha rabaan aadaan ilaa markaan ma jirto mugtayo qabiil ka xoog badan oo ka awood badan oo ka ciidan badan ma jiro dawladda wadanka wada haysa markaas dadku waxay fursad u helayaan inay ayawada ka tashadaan haday rabaan ay isku biiraan haday rabaan ay kala wadtaan arrintan ma sameey karaan intii la gaaray 2016 federalism runtii horta ma hirgeli doono haddaan amni la helin oo dawladda gacanta ku dhigin waddanka oo dhan sababta hadda loo go'aamiyey in 2014 kan by October ay dawladda gacanta ku dhigto waddanka oo dhan waxay ahayd in nidaamka federaalka la hirgeliyo in dastuurka la afti loo qaado in 2016 ka ay doorashooyin dhacaan marka taasna amnigaas marka uu yimaado ay dawladda kontroolkeeda yeelato waddanka oo dhan ayaa imaan karta waa taas waa ugu raacsan magacayga waa Axmed Cabdi Samad from Columbus waa ku salaamaya saacadii wasiir laba su'aalood baan rabay inaan ku weydiiyo su'aashii hore in kala ku weydiiyay marka waan ka harayaa su'aasha kale aan ku weydiinayo hadda igu cusub waxa weeye muddo hadda sanad ka badan waqti laga joogo waxaan media ka aragnay in Soomaaliya laga qaaday cunaqabateenkii hubka in badan oo kamid ah waxaan aragnaa hadda media ka aragnaa labada askari oo Soomaalida oo wada socota nin walba tuuta gaar ah qabo oo isna ayagu xataa isku sumad ahayn maxaa cunaqabateyntii la qaaday Soomaaliya benefit ay ka heleen maxaa la dhigi jiray adiga ku ogtaa shakhsiyan Soomaaliya ciidamadeeda maadaama ay hadda dib u dhis ku socdaan waxa loo siin waayo xataa wax darees ku eg oo ayagu maxaa la dhigi jiray ay ku midaysan yihiin su'aashaas aad bay ii taabanaysaa xaqiiqdii sababtoo ah UN Security Council waxay cunaqabateyntii hubka Soomaaliya muddo more than 20 years saarneed ka qaadeen February 2016 ilaa haddana dawladda Soomaaliyeed awood uma helin ay ciidankeeda ku hubeyso arrintaasi waxay la mid tahay nin la yiri dagaal gal oo haddana gacmihiisa gadaal la isugu xiray runtii dagaal baan ku jirnaa shabaab baan la dagaalamayna haddana ma rabaan macnaa mala wax oo taageero oo la taaban karo tangible ah oo international community ay ka geysteen ciidanka hubeyntiisa iyo dib u dhiskiisaba runtii ma jirto xaqiiqda marka arrintaas waa arrin aad u xanuun badan midda kale UN Security Council waxay kaloo go'aamiyeen go'aan kale oo ka dambeeyay oo ahaa in ciidamada AMISOM sida loo taageero ciidamada Soomaaliya loo taageero I think waxaan u malaynaa resolution number 2013 oo marka laakiin shuruudo ku xiran yihiin marka ay AMISOM la howlgalaan oo haddana howlgal sameeyaan kaliya ayagoo isku joog inaan la siin runtii marka inaan annaga isku tashanaa loo baahan yahay oo aanan beesha caalamka fiirin Shacab Cabdi waxaan ka mid ahay odayaasha Columbus marka hore waxaan magacooda ku salaamayaa wasiirka iyo ambassadorka iyo aqoon-yahanada iyo dadka soo qaybgalay marka labaadna waxaan ku salaamayaa magaca odayaasha Columbus su'aasheedu waxaa soo koobaya maadaama in badan wax su'aalay waxay isku noqonayaan waxaan maqalnay maalin dhow ayaan dhawid in dawladda Soomaaliya u yeertay safiirkeeda ka joogay Nairobi si ay u muujiso cabasho dhibaatada ku dhacday shacabka Soomaaliyeed oo qof kasta og yahay dawladda Kenya jawaab ay uga bixisay inaynan safiir ama qosul u magacaawdo Kismaayo oo gobol Soomaaliya kamid ah raaciyo adiga ka wasiir ahaan waxaan maqalnay inaad hadda xilkii ka dagtay maxaad hadda dawladda u haysaa ma waxaad tahay nin Soomaaliyeed oo laba door ama xil wali khalsooban u haysaa waa mahadsan su'aashaadii ugu dambeysay ka bilaabayo muwaadin Soomaaliyeed oo idinkeeda mid ah yani xilkii hore aan u soo qabtay waa dhamaadeen marka wixii kala fursad yimaadana waa arki doonaa insha Allah kala ahayd wasulka ay Kenya u soo magacaawday jubbooyinka runtii waa ayaan daro xaqiiqda markaan sheego annaga Soomaali baan nahay waddanka Soomaaliyeed Soomaaliyaas dawladda Soomaaliyeed ayaa mas'uul ka ah waddankaas laakiin maadaama dawladdu aanay hadda waddanka oo dhan gacanta ku haynin dhibaatadaas
ayaa imaanayso in qof aadan dawladda raalli ka ahayn uu meel yimaado oo la yidhaahdo mas-uul oo waddan kale u matalaya runtii waxaan qabaa waxaa jira shuruuc caalami ah oo diblomaasiyadda adduunka oo dhan ay isku xukumaan safiir kasta iyo qusul kasta oo lasoo magacaabo oo dawladaha caalamka ay soo magacaabaan waxaa loo baahan yahay xamar in madaxweynaha uu ogolaado wasaaradda arrimaha dibadda lasoo marsiiyo laakiin tan hadda muuqato waxay tahay iyadoon dawladdii lasoo marin in qunsul la keeno oo Kismaayo iyo Jubbooyinku mathalaya la yiraahdo waa arrin dhaawac ku ah dawladnimada Soomaaliyeed waa arrin loo baahan yahay runtii in lagu gudbo oo lagu cambaarayo dawladda Kenya عشو ما قادان هذا عشو قادان أنا قادين وايد أنا عشو قاد بيجوز هذا نقالات كالسي هذا عشورات قادان عيد كوكلي وحاسب عشور runtii waa la qaadaa laakiin canshuurta sidii la rabay looma qaado canshuurtu waxay ku egtahay kaliya dekada iyo airportka meeshii la rabay hadda xamar waa booming businessyaal badan baa furmay hoteelaa furmeen makhaayada furmeen dukaama furmeen waxaasoo dhan haddii canshuur laga soo qaadi lahaa bakaaraha by the way waa meelaha ugu xoog badan oo East Africa oo ganacsiga ka socda dawladdan wax canshuur oo ay ka qaado xaqiiqdii maray in beesha vice waxa canshuur ka qaata al-shabaab حقيقي بكارها الشباب waxay tiraahdaa intaas la idin ka rabaa dadku waxay la degdegaan xageen geeyna yaa u dhibna runtii markaan idin sheego marka laakiin hadda waxaa jiray baan oo la rabay in canshuurta bariga oo dhan laga hirgeliyo xamar goboladana hadda waa loo gudbi doonaa hadii alla yiraahdo marka laba su'aal yar baan rabay inaan maartay ku su'aalo marka kuwa wax waaye maamul dawlad goboleedyada oo gobolka Bay Digri Merfa laga dhisay waxa way maamulada kale waa la ogolaaday macnaa oo dhismahoodii macal dawladda Soomaaliya waa ogolaatay sababta loo diiday oo dawlad goboleedka maamulka gobolka Bay waa 6 gobol oo hadda loo madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo hortaagan yihiin oo sababta macnaa looga taagan yahay oo taas raba inaan maartay wax ka su'aalo teedka labaad wax waaye Soomaali waxa laga heshiin leeyahay nin kasta deegaan oo Ilaahay ka beeray oo aan la soo Soomaali marka deegaanada dadka oo dhulka oo Digri Merfa ayaa Sembere wax waaye dhibaatada ka dhacaysa meesha ugu badan sababta oo macnaa dhulkaas oo xasil la'aantaas iyo dhibaatadaas ka haysatana wax waaye boobka Soomaali lagu wado waaye oo dhinaca goboladaas dhinacaas marka sababtu ma aragtay ka deegaanadahay dhinaca waqooyiga saas ma aha gobolada dhaxasaas ma aha marka dibka aniga oo Digri Merfa lahaan dhulka dhibaatada ku taagan maxay tahay marka su'aasha saarbi dadaal badan ayaa socda xagga dawladda runtii markii hore la rabay dadaalkaas in runtii la galo waa dawladdu way ka daahday laakiin waxaad ogtiin madaxweynaha inuu tagay Baydhabo oo dhowr habeen uu soo joogay oo uu ballan qaaday inuu markale ku noqdo haddana si arrintan Baydhabo ka taagan uu xal u gaaro waxaan rajaynayaa runtii in xal loo heli doono su'aashaada kale kulli comment ay ahayd Kismaayo in la diido runtii inaan galo aniga kaliya ma ahan waxay la socday wasiirka warfaafinta waxay la socday wasiirka garsoorka in wasiiradii dawladda ugu muhiimsanaa Kismaayo inay galaan loo diidana waa dhaawac qaranka loo geystay xaqiiqdii ma aha wax oo shakhsi iyo ku saabsan wax aniga ugu saabsan ma ahayn Hantidaadu